marka wax yar hadaan ku daro dagaalkan lagu qaaday Iran dagaalkan muddo 40 sano ayuu sheegay Netanyahu inuu qorsheynayay oo uu rabay inuu ku qaado madaxdii horeeto Mareykanka way ka diiday وجمال سيدو شيء ورنتيس أو دجال كان وحوها دجال محوها تكن تاكا أو ما أعرفي لسودي أرني مدرر تجاوز يقول رئيسنا دعضي سنة كلا صورة في بشي جون مركي لغي توان مع الموت ودجال كسعودي مركزي أو 10 بدن أي كقاتين حبك أيود دجال مس إيران يجنت هلا هاي صوت ورس لكن وحوم مقطع إيران إن سيدي لو مليني هراء أين رهين وحساب خلاص أي يسكنوا في صدين oo ahayd in muxuu ahaa marka la dilo ayatullah laga tuuro xukunka inay kacdoon dhici doono kadibna dawladda la afdambin doono walibana waxay isku dayeen CIA-da Mareykanku in hub la siiyo Kurdishta oo Kurdishiintu ay jabhad iyagoo galaan oo ay maartay galaan way diideen oo waxay dhaheen anagu ma ogolin muxuu ahaa in dagaal loogu danaynayo Israel aan galno in dagaal loogu soo danaynayo aan galno way diideen marka waxay muuqataa in ay ku fashilmeen ay u muuqataa qorshihii ay ku talagaleen hore ahaa in muxuu ahaa Iran inta lagu kiciyo jabhado shacabka la kiciyo madaxdooda la dilo iyagana meesha laga saaro oo xukunku saa ku burburo arinta way ku fashilmeen si u muuqato waxa kale oo iyadana muxuu ahaa meesha ka baxay wadamadii NATO maartay westernka ahaa isla ahaayeen NATO oo iyaguna dib uga istaagay oo ku biiray dagaalka markii hore to wada socotiin in muxuu ahaa Donald Trump markuu week waday uu yiri we won the war dagaalka ku guuleystay laakiin dagaal uu ku guuleystay ma jiro waxay u muuqataa ma artinin iska faanku jecel yahay faankaasi meel lama gaarsiinin wadamadii Yurub oo dhan ayuu u yeeray oo wuxuu yiri soo gala dagaalka waa laga diiday sababtoo waxa loo arkaa dagaalkan inuu yahay mid sharci darro ah oo muxuu ahaa lagu qaaday wadanka Iran lagu qaaday iyadoo ma artay wada hadallo u socdaan labo muxuu ahaa goor oo wada hadallo u socdeen ayaa labadiiba la weeraray marka khiyaamada ay ku sameeyeen wadankan muxuu ahaa Iran ay khiyaameen ayaa shaqeyn weeyday wadankan Ingiriiska waxa la yiri muxuu ahaa dagaalka soo gal wuu diiday Kiisama waxa markii hore ay dhahan xataa ma artay xarumaha meeshan saldhigyo Mareykan waa wax loogu talagalay in muxuu ahaa lagu burburiyo dhaqaalaha adduunka in lagu burburiyo wadanka Iran waxay u muuqataa inay muxuu ahaa dagaalkan ay muddo 30 sano isu diyaarinayeen gantaaladooduna waxay ku hoos jiraan buuraha hoostooda ay ku hoos jiraan waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah gantaalka marka la ridayo waxa buurta dusheeda ayaa waxa furmaya khaanad ba furmaysa albaabka ka furmaya halka ayuu ka soo baxaya gantaalku markuu halka ka soo baxo ayaa la tuuraya diyaaradii baa ka soo kacaysa xagga Israa'iil iyo tii Mareykanka F-15ka ayaa soo kacaysa xagee duqeynaysa xagee laga soo riday they don't know meel burcid garaacayaan marka waxayaan Iran lagama guuleysan karo hadda ciidankii ugu horeeyay oo ah ilaa 3500 ayaa waxay gaareen muxuu ahaa bariga dhexe gaareen waxa kale oo la sugayaa 10,000 oo ciidan iyagana oo Mareykan ayaa la sugayaa inay gaaraan maalmaha soo socda 10ka bisha 6da bisha Abriil inay gaaraan baa la sugayaa marka waxay qorsheynayaan Mareykanku in ay qaadaan muxuu ahaa dagaal lugta Iran waxay leedahay waa sugi la'anahayba in dagaal lugta aad soo gashin sababtoo ah number 1 2003 waxa la socotiin markii la weerarayay wadanka Iraq in muxuu ahaa ciidamada lugta ee Mareykanku ay yimaadeen wadamada Carabta oo la shaqeynayay 7 wadan oo Carab ayaa diyaar u ahaa inay dagaalka la qayb galaan Yurub oo dhan baa diyaar u ahayd Mareykan kaliya ma ahayn 150,000 ay ahayn ciidanka Mareykanka waxaana dagaalka laga soo galay dhulka Sacuudiga iyo Kuwait iyo ayaa laga soo galay infantry hadda marka qorshahan hadda maagayeen xagee baa laga dagaalka laga galay ama waxa laga galayaa muxuu ahaa Iraq oo dawladda Iraq ma ogolanaysa in ciidamo lugta ah oo Mareykan ka galaan Iran waa maya badda miyaa lagu daadinayaa oo maraakiibta miyaa dejinaya waa maya xagee bay ka galayaan dagaalka lugta marka Iran waxay leedahay waa midii aad ku baabi'i lahaydeen bay leedahay waxa marka ay direen baa 800 oo maartay kuwan parachute-ka oo la rabo in muxuu ahaa Hormuz meeshan maartay Mareykan maraakiibta ay kontrolsho Iran ayaan ku daadinaynaa 800 oo parachute
already waxa areas oo dhan la geeyay ciidan kaleeto oo muxuu ahaa Iiraaniina oo muxuu ahaa sugaya kuwa barashuudka marka waxay u muuqataa xisaab kale isku tay waxyaabo kale iyadana aan raba in idin la wadaago waxa kamid ah in uu Trump yiri ma aan filaynin in muxuu ahaa Iiraan ay weerarto wadamada khaliijka think wax la yaab leh waxa weeyaan dadkan malamiya advisors military strategy malamiya Iiraan waxay sheegtay markii hore wadan kasto oo nalaga soo weeraro waa target waan weeraraynaa si sheegtay marka wuxuu ku leeyahay this guy is a dumb I don't know how he thinking this guy wuxuu ku leeyahay I wasn't expecting bu ku leeyahay muxuu ahaa ay weerari doonaan wadamada khaliijka maadaama ay muslims la yihiin kulaha Ahmed ninku wuxuu ku jira weli wuxuu moodayaa barnaamijkii uu haysan reality TV exactly tii kale weli moodayaa waxaan Mareykanku uu ku baabi'i karo wadamada khaliijka oo dhan ay baabi'i karaan dhaqaalihii ma bala dejinin qorshahaas hay Iran la ka sheegtay Iran waa kisaanash waxa qorshe u diyaarsan ma jirin ninkan uu soo booday the losers waxyaabo la yaab kale marka Iran waxaan 8 wadan bay awood u yeelatay inay mid walba garaacdo pin point Ahmed Trump waa carab arrin weyn afxiis waxa kale oo la yaab leh Soomaalidu ku waash Soomaalidu caynaya cudur Soomaali yiraahdo ku dhacay hadda carabti caynaya ninkan muxuu ahaa hadda dhaxal sugaha reality TV wali masaas uu caay jiray masaas baa waligi asaas uu afxuma waligiiba oo wali qof intuu caayo marka dambe uu oran jiray you fight ku oran jiray you joking kawar marka waxaan afil soo fa America in ninkan madaxweyne ka dhigtaan laakiin waxa ka animalsan kan xayawaansan kuwii u codeeyay waxa kale oo iyana la yaab leh inuu muxuu ahaa mar walba uu aflagaadeeyo wadamadii NATO oo uu leeyahay soo gara dagaalka NATO waxay xusuusiyeen dagaalka NATO waxa loo sameeyay inuu san ahayn attack uu yahay defense isdifaac ayaan loo sameeyay wuxuu yiri marka anaga hadii hadda la soo weeraro Ingiriiska oo Ruushku weeraro ma difaacay nabi Ingiriisku marka hadda waxay rabaan inay kordhiyaan budgetka difaaca defensiga waxay kaloo sameynayaan muxuu ahaa maraakiib dagaal bay iibinayaan Europe waxay go'aansadeen inayna Mareykan ku tiirsanaan from now on because bolosigi Mareykan uu isbedelay waxa kaloo isbedeli doona iyadana xiriirkii wadamada khaliijku ay la lahaayeen Mareykanka waxaana suuragal ah in xiriirihii Mareykanka ee la gubay ee Iiraan gubtay in dib loo dhisin oo lagu qasbo Mareykanku inuu ka baxo muxuu ahaa bariga dhexe waxaana taa daliil u ah wadamadan khaliijka dhan waxay soo iibsadeen intii dagaalkan la isu diyaarinayay for the last 6 months waxa la geeyay air defense iyo missile defense saarkan lagu ilaaliyo Israel ayaa la geeyay iyaga lacagta baxsaday billions baa laga qaatay markii dagaalka habeenkii ay ku dhawaaqeen 2 days later diyaaradaha ka qaaday baaladii oo dhan saarkii waxa la geeyay Iran although they paid the money iyaga lacagta bixiyay wax laga qaatay defense marka waxay ogaadeen carabtu hadda in defensiga securityga ay la saxeen Mareykanku inuu ahaa false failure weyn waa been buu ahaa lacag kaliya laga gurtaa Ahmed su'aal ku weydiinaya goon su'aasha ku weydiinaya waxay tahay Mareykanka gaar ahaan ninka la yiraahdo Trump wuxuu jilayaa film uu leeyahay wax alla wixii qarash dagaalkan ku baxay waa inay carabtu bixisaa gaar ahaan diyaaradihii muxuu ahaa saddexdaha ee Kuwait ku soo dhacana waa inay Kuwait bixisaa muxuu ahaa waxaan u baahanahay ilaa 4 trillion aan u baahanahay carab hadda kaga raba si degdeg ah arinta carab ogolaan doonaan way ogolanayaan sabta una ogolanayaan waxa weeyaan carabi malahan muxuu ahaa xiniyo ay wax ku diidaan dadnimo malahan nimankan waa niman maartay Arab tribes waa qabiilo nin walba meel iska xidhay ceel basiinaya gaas ay wasaaray ku qodeen oo marka la rabo laga aasi oo laga dumini noloshoodu waxay ku xiran tahay kuwan muxuu ahaa ceelash u qoday hadda waxay maalmahan wadaan oo ay soo galiyaan social media how the Arabs was live 1970 1950 1940 they were nomads waa dad waxay guuraabe ahaayeen baba waxaan xusuusinayaa marka annaga idin soo saarnay batroolkan waxaan idinku celin doonaa inaad ratiga daba socotiin ayaan xusuusinayaa filmadii hadda soo saaray wada black and white oo leeyahay muxuu ahaa this guys they were nothing before the oil saxaray joogayno wax iska nomads baan dad xoolo dhaqatay ahayn baba oo wax la haysanin tiba la xusuusinaya leeyahay iyo marka hadii lacag kasta oo Mareykan rabo kharash iyaga bixinaya iyaga laga qaadaya
laakiin waxaa isbeddel ku dhici doonaa anigu ma sheegin haddii new leaders ay yimaadaan oo caraba laakiin kuwan hadda jooga ama imaaraadka ha joogaan ama sacuudiga ha joogaan ama kuwait ha joogaan waxa weeyaan waa bobet waxaa laab maaragtay maraykan bay dhabta ugu fadhiyaan iyagaa masruufa iyagaa lacagta kharashka laga qaadaa waxna ma diidi karaan waa garanti wayna bixinayaan lacagta okay su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay laba su-aal isku hadduldhigaya nimanka la yidhaahdo yahuud juush waxay aaminsan yihiin in la dilo madaxweynaha muxuu ahaaye nimanka la yidhahdo madaxweynaha la yidhahdo syria in la dilay doonayaan ujeedada ay ka doonayaan maxay tahay in la dilo maxamed abel sharaac ninka la yidhahdo sababta in loo dilayo maxay tahay one ta kale ninka la yidhahdo Trump wuxuu yidhi carabta waxaan moodayay dad baan moodayay dad rag baan moodayay laakiin waxaa ii soo baxday inaan rag ahayn oy haween yihiin hadduu yidhi miya اوكي وقبل سيد عبد الحسن ما عنده عتاته في قد عربي وناقه قبل يبغى كسفه سيد عبد الحسن مركا مدن دريد كبرى اوف كورس وي هاف تو ونيكو سمعني يا قبل سيد عبد الحسن يستلمكم كويت محمود الرقبه المولي وهوين لا وهوين رقم حلوان horta labadaas su'aal ka jawaab axmedow بدن سوريا أرتا سوريا وحويان كويت مسيا قاعد كرنيه كويت وحويان بروبلم كو كخل كدع وكان ديسمبر ماشان مركي والسلام وكخل دمي وكويت وكدردويه صح كويت او دقالين جرتي مد لباد كويت ما همودين امارات كامودي كويت waxay adeer u wada tahay wadamadan maxaan ku rahay carabta oo dhan bay hadda adeer u wada tahay sacuudiga isaga oo maxaan ku rahay aan jirin kuwait wadan bay ahayd maamul bay ahayd waxa markii qoladan al sacuudka ay qoladii Cuthmaaniyiinta ay ka soo qaxeen kuwait bay ku ahaayeen qaxooti waayeen Abdulaziz isaga oo nin weyna ayuu qaxooti ku ahaa kuwait ku ahaa oo kuwait laaji ku ahaa ay wax siinaysa Cuthmaaniyiintu halkaas kuwait ku ogay mayna boodar garan jirin معناها قول قبيل أو حضارة فوقله أو محن كوراي وحيابها بدل لقى صور صاري محن كوراي لونكا أي كجر عسل تيرين يكلونكا محن كوراي قلتيان تمرير وملها كويسميان وبصرك كهرانيو لونكاس وحويا قول حضارة ونأكسر لبيها هشيس في عنا الله محن كورا قولي بقرطويد إنجليزكا بقرطويد كي محن كورا عثمانيين تونا هل كورا سكوين مين بودر جرينشرين عربتا مركي كسو قحضو أي كسو عرضان أي كسو بغدان محن كورا عثمانيين تكسو بغدان كويت بي من شرين ويكا علمي بدنيه لكن ماشي قولدن إمارات كليلها iyagu waxba meena bahaysaninba waaga ay iyadu ay dadka wax siinaysay wax qaybinaysay kuwait waxay ahayd wadamada caruurta maxaan ku rahay muslimiinta iyo carabta iyo scholarship inta loogu keeno waxna lagu sameeyo waxna loogu baro wadan yar weeye dabcan marka soo loo sameeyo laakiin shaydaannimadan maxaan ku rahay imaaraadka kale lahayn iyo qolooyinkan kale iyo shuqulkooda meena ku jirin wadamada islaamku way dhis jireen waxbay siin jireen laakiin siyaasad wadan islaama oo faragashadeen way adag tahay hase ahaatee gobonimadooda iyagoo la arkaya inta ay leeyihiin ayaa haddana mangelyo loogu soo carari jiray marka kuwait ma aha imaaraadkoo kale kuwait sacuudigan al sacuudkan ma aha iyaga ayaa ka weynaa oo ka horreeyey oo ay u soo baxsan jireenba Cuthmaaniyiintu waqtigoodii iyadoo jirta ayay iyaguna maamul ahaayeen Iraq way ka weyn iyadoo Iraq wadan ahayn ayay Kuwait wadan ahayn ma garatay Iran iyadoo intan Iran aan la odhan ayay iyadu wadan ahayn oo qoladii maxaan ku raashay oo kale isagoo oo waqti aan haysaninba ayay iyagu maxaan ku raay nidaam ahaayeen marka meel ma aha aad loo ignore garan karo oo loo caay karo Trumpna marka waxaan u malaynayaa inuu qofku ugu jaayirsan bariga dhexe marka la yiraahdo inuu yahay markaaduu yiraahdo kuwait waxaan moodaysaa inuu yahay keli because waxa weeyaan waagii waxay reer Bush iyo Mareykanka iyo adduunka isku soo raacay macnaha waxa weeyaan kuwait meen u qalmin inuu Saddam ku durduriyo meel kale ku durduriyaba inuu kuwait soo galana Mareykanka laftiisa waxa signal si iyaga ka dambeeyay يا خدمي عرفت كويت waxay radaan dagaalkii Gulf War bay dhahan
وارنتا مريكان بقى كده بإنجليز وحين وقدم بين حلقي إزدقاليين إيران العراق سليد عراق إيران وحصارنا عنقبتين حق إيديا سليد دودا بترول هو حقوقي يبين جري مركا كويت لعقتين مركا سينجرين عراقيين سووا بقوا يبسلان حلقي مركا دقال كده ماضي مال واحد شرطة أي عراقي شاريين أي وارنتا ويشير كويين العقد ماشي كسب هذا أيوم بالسينجرين تكلم وعويان كويت هدي أي وطن واحتر يسوي وحسين يسوي because ما سينكرتين ما بيننا بقى قوانين بقى إنه ما ينبغي كبير الجرم بقى مريكان كيو أركي أي سين يسي محنكو لا يقول إيران وأركيسا أي سين يسي عاومات محنكو لا عراق يسين عراق مركزي دقال كده ماضي أيان وسترين كيبا وحكون ده سعر حسين بليونس هذا اللفت يضو سعر تاعي عنقبتين أي سعر تاعي dad fara badan oo Iran ka soo jeedo shiico fara badan baa deganaa meesha la yiraahdo Kuwait oo ka shaqaysanayay oo Iran wax siinay oo daawada geenay oo dhaqaalaha geenay oo wax walba geenay inna ma dabada ka dad macaan marka iyaga ka shaqeey okay haddaan u imaan xaggan Syria yahuud waxay u daba taagan Israa'iiliintu inay ninkan ka taqalusaan waxay ku eedeynayaan ninkan wuxuu ahaa urur argagixisa oo ISIS ay ka tirsanaa oo fundamentalist wadaadnimo tii wali kama taraasulin beelay وكتنا سوري لكن عندك ما واحد مركور ماشي أو كانين واحد ودي كل يعني وحبك الربع إنه لو خارجي وحياة بدون بيرمان هنا حلالستان مركا عاد قولنا هايت كبوري قولنا هايت كوقف سنين وأنت إلى 60 كيلومتر بيجودها أو قلين لوكاس أو حق درها مركا تاس بيجو خلط على ميان أنا وحن مودي أنا كم وحن مودي ونين لبح حنيود لي أساس يولد على ما أساس ما يورت بروسي في عوها يا مارت وضك إنه دب صوك يوربا يقولون مرة ما وحربان محوها وضك هاس إنه بربرو لوك أي قبصدان وحكلو نينكا وايت هاوس كده حديث أو محنكور هاي ترام وعذرك كجيبيني ومدحوينينا وديلر وقتي وديلر عذر ترام يلا هو كجيبيني عذر كجيبيني ولا بوفي ولا سوما فعل أنا بحاول إنه بوسه بكون فيه ما ترامب كيبيني عادة ترامب يبيني ها وأنت محل شرح بوفيه ولا يجيبش هذا كليب ده مدعوينا بريك جهاد كاوي واني كاس على أيوه قلنا هذا ما عنده سونل كما هيسنا كيبيا بس هذا ما عنده الذي سونل روح مش غيار كما هيسنا روبي كده هنا كوبانكا كم وين بيحرق صار ساسيدا أي ساستين وحرق مقاس يصورين كبي وين يصور حجرة وأنا خلاص بين صور حدا كلاس سامش فلوس مركب ماشي بس كجوك هذا مركب كو ما ده كرنا محارت هذا دولة النمذي يو محارت هاي بدي أدين ويسي أي ولي ليه ما ده كرنا عنقضي ما الله كبو كمان إنه شيء ما لا في الستوك أي نقضي هذا حويان وبيتكلم حق security ويجا باشا waxay tahay GPS track oo ya tracking bay leedahay kabaha security kabaha ay xidhan yihiin dibadda meel kasta lacagta dhigayo halkaas laga socdaa marka iyaga lagu waardiyeeyaa okay marka waxa weeyaan hadda dagaalkan runtii meel ugu dambeyn doona lama ogo dagaalkan waxa weeyaan sidii ay u maleynayeen ma aha farow ka baxay haddana waxa ku soo biiray xuutiyiinta marka jamaal xuutiyiintan hadda ku soo biiray ku jireen ما لك ولا قتال مين تقول لكن شرط قتالك باللاعبين هذا ما الميد واحد سميني شو بيسميني مركو وحلقة يا باين لهاين بهرتا إذا كنت دالية مركورة إذا كنا ورايا كدمنا أنا ويف كلا بعض أيام من مركا حوتين هذا كصوب بيري أو شرط يكون باللاعب قتال يقولي أو يري وان وراينا أنت الله ويري إيران ما حي سامين كوكي لك تهدي حوتين تو أي باب المندب حيران oo marinka badda cas u xirmo Iran ay xidho Hormuz dhaqaalaha adduunyada saameyn intee la eg ku yeelan doontaa dagaalku ma sii socon karaa bay kula tahay waqtiga dhaqaalaha adduunku macnaha xamil karo dhibaatadan waa wax hadda loo oran karo waa wiigag ama bil hadii loo badiyo loo laakiin in ciidan la soo abaabulo oo la keeno meelahaas hadda bariga dhaxoo kale صح oo maraakiib iyo adduun iyo waddamadii la isku soo abaabulo ayaaba bil qaadanaysa haddii la soo duulo oo ciidan kala cusub keenaan waxaad ka garan karaysaa waagii diyaar garowgii galfoorka oo kale
ugu yaraan 6-8 bilood ayaa la soo diyaarinayay la abaabulay sharciyadna looma marin oo dee waxa weeyaan UN resolution iyo meelo kale iyo waxba looma marinba idan xataa wadamadooda xataa mayna baaskaraynin oo congresska iyo waxyaabahaas mayna xataa mayna sharciyeyn waa runta maxay soo kordhin karaan macnaha qoladan xoutiyiintu waa ku soo biiray dagaalka haddii aan macnaha bal sawir yar ka tuso waxaad wadan ma xasuutaa afrikaan oo world cupka ku soo biiri jira oo ciyaarja ma Senegal buu ahaa mise Morocco wuxuu ahaa qoladii macnaha hadii jeer Cameroon markay world cupka ay ciyaarayso waxa ay tababarayaashoodu ku macnaha ay macnaha kula dadaami jireen teamka macnaha in ay macnaha ay ciyaaraan ay daalis haye oo ayna waxbaba isku badayinba inay gool ay dhaliyaan laakiin ay difaaca qolada daaliyaan oo 0-0 ga ku hayaan marka ay ka harsan tahay 15 daqiiqo sax umba waxa la arki jiroon oday weyn oo bidaar loo maxaan ku dhahay waxa loo oran jiray Roger Miller baa loo oran jiray waa nin senior marka ninkaas 15 ugu dambeeya daqiiqo haddii la arko isagoo ordaya waxa weeyaan qolooyinka kale ee marka is hayaan illow waxa weeyaan waalidaan waa 15 daqiiqo ugu dambeeya magara sax ninkaas Roger Miller baa soo galin jiray marka ina xasuustaan mooyee Cameroon markuu 15 daqiiqo dambe u soo galo hal gool dhabka dhanaya qoladii iska yiri ama Talyaani ha noqoto ama Brazil ha noqoto ama ciday doonto ha noqoto gartay hay ha noqoto Roger Miller markuu halka gool ka dhaliyo waxa soo haraya dhowr 7 daqiiqo camal oo kale 7 daqiiqana waxa uu qabanaya difaac bay u qabanaya marka Cameroon baa waxay ku ciyaari jirtay sax in ay marka ugu dambaysaa oday aan in badan aan isagu ciyaari karin laakiin hal mar hadduu wax soo baashay 15 daqiiqo uu soo galo uu gool kale macna game changerka uu sameeyay halka aan ugu socdaana taa weey marka xoutiyiintu macna dagaal protracted ama dheeraanaya way geli kartaa haddii buuraha loogu soo koro laakiin burburiskan faraha badan leh waxa weeyaan buuraha iyo godadkoodaas kaga jira dad aad u farsamo yaqaan oo xadaariyiin oo macnaha xadaarad fuulina weeye xagga farsamada wax kasta oo components oo dhanna waxay ka soo buuxsadeen maxaan ku dhahay godadka iyo buurahaasi ka soo buuxsadeen wax Iran samayn karto way sameeyaan waxa ay China samayn kartana way sameeyaan way isku xidhanayaan oo tigniga aad u yaqaan farsamo yaqaan cajiib weeye hubka isma sakana marka saamaynta yeelan karaan waa un cagadaaris miya marka hadda waxa weeyaan maadaama ay hadda ay baray isla daaleen meesha la yiraahdo Iran ay isla daaleen sax oo isla burbureen waxa weeyaan goolka u dambeeya xoutiyiinta ka dhalin doonta sidii Roger Miller uga dhalin jiray 15 ugu daqiiqo kooxdii Cameroon reserve-ka marka waxa weeyaan hadda waxaynu arkaynaa waa show macna ororda inay macna uu soo gali doono laacibka cusub ee marka xoutiyiinta awal buu ku jiray dabcan tiimka way kamid ahay haddii marka ay durba ay degdeg noqoto inay xidhanto meesha la yiraahdo Baabilmandabna adduunka dhaqaalihiisii markaas waxa weeyaan saliidii waa serious buu noqonayaa hormuus oo ahayd 20% ama 25 tanna waa 60% boqolkiiba waa 60 waxa weeyaan almost 50 plus bay soo haddii la isku daro sax waxa weeyaan boqolkiiba 50 adduunka dhaqaalihiisii ama 60 hoos buu dhacay yaa marka maxaan ku dhahay damaca Trump iyo damaca Netanyahu ma shaqayn doona ma shaqaynay marka waxa weeye waxay noqonaysaa in meel walba maxaan ku dhahay iyadoo ay dib isugu foofto oo ay dib isu xaliso oo ugu badan tahay Mareykanku ninkan in la yiraahdo sidii maxaan ku dhahay odaygii Muuse kale loogu yeero la yiraahdo Trump filada ka soo baxa waxa Trump aqalka cad ka soo baxa Trump guriga ka soo baxa hada la doona wadooda marka malaayiin baa Suudiyo kale oo Mareykana oo qoladii Rednecks ka loo oran jiray macna waliba isagu cusuri lama oran karo isagu waa soo galay Jarmal
كان ترامب هو immigrant وإميجرانت هو أنا لكن سووا إميجرانت ويرا last 20 years 30 years وحي من المراكب ما أوجي بقى immigrant جربنا exactly أوجي بقى قحوتية وصوق على قحوتية هذا ولا السجية أبيه بقى معان كورة درشة رسمية هذي أبي ولو دينا تشرسيشة كقاطع لكن أبيه بقى ماشى كل شيء صح أوجي سوى حوالي نين سعي الإسكسي يجوا هذا ولا هذا والله كان تيجا ما وتيجي ماشي هو وحنا فاميلي تري والله كان كثير marka waxa weeyaan Trump waxa weeyaan qolo ka sii cunsursan baa meesha joogto oo ka wadaran isaga marka waxa badan tahay dhaqaalo marka hadda uu taabto صح hadda wuxuu ku aaminsiinaya oo ku sixinaya intii reserve ka hayd iyo intii Venezuela iyo waxaas taasina ma wali karayso marka waxa u badan tahay inay xajin Muuse Suudi oo maxaan ku yiraahdaa ilaa ka soo baxay marka last word kalmad u dambays xuutiyiinta oo shalay iyaguna bilaabay inay gantaalo ku tuuraan waa Abqaadir maxay saameyn ku yeelan doontaa dagaalka haddii ay xidhaan baabilmandab balse laga yaabaa yuhuudda inay saldhigga ay ka samaysan yihiin berbera inay ka weeraraan xuutiyiinta hadday iska weeraraan maxaa dhici doona xuutiyiintu ay ku garaacaan muxuu ahaa madaafiic hargeysa iyo burco iyo berbera horta waxaa weeye waxaan ka eegaynaa dhanka istaraatiijiyada ka eegaynaa marka ugu horeyso xagga istaraatiiji baabilmandab waa runtii meel aad iyo aad muhiim ah hormarsoo kale ah ويان ورنتي أدونك ودن وكحرية صح جناحسك أدونك مراكب ترى أي مران وإل أقالة وتاسو كلامده هذين كسي درنا ولي تاس شذاك وكريه يا وحده وحتى يرجعون إن أمريكا كإسرائيليين مراكب تذكري كل هذين هذا إسرائيلي أمريكا أنت جرين هذين هو كلامه وحويهم فيكتم ويجي هو كلامه وكعرين صح صوته إني كوريكتان ومالك أنا كسوريكتان يو بدنتهاي مركز هذا دورته وجول وهذا وحده جمال شيء هالكا إنه يجوا لفت الكود فريستان صح ويرى هذا وحي حتى قدام بيا حقا وحي سو مري أنا كنترولنا مريكا يهود نمص مريكا هالكا أنا قبتين ما كذا قوانينا صح هذا يرى هذا وأهرين وحي نقول إسا مريكا يهود كل نقول يسمحوها عقبت فرحهم صح قالوا هذا نهوس وسيد عيه صوته حتى مريكا كوحل عدي غاري سمارو البين وقصارى انت $1 بليون يو من اللي يستيقوا نبا عربي يهودنا والله مت غالي ديارنا ما يستاجموك ديار بكاي سمالها بليون سي خسارين ديلي marka how can they sustain inta joogan ma joogan marka maxaa way dhibaatadaas darteed inay halka u istaagaan iyaga waxay u sameeyeen final inay u soo saftaan hadda soo saftaan iyagoo fresh leg ayagoo inay hadda soo saftaan taasaa keentay waxa ku soo hortay haday saldhig ka sameeyaan nimanka la yiraahdo berbera haday ka sameeyaan kuma dhacaan ma sameyn karaan ma sameyn karaan this is what shimbrio heesa way wax soconaya way bilaabeen bali Israa'iil iyo dagaal ku jirta baysas cusubna ma dhisi karto kuwii Mareykanka ay macnaha la sheer garin jirtay macluumaadka wixii baba la bixiyay صح marka sidaas daraaddeed dhaqaalana waa haystaa Israa'iil maanta ma talaabo ma qaadi karto malaga yaabaa marka xuutiyiintu inay target gareeyaan maadaama ay dhaheen saldhig kastoo Mareykan ah oo weerarayna Djibouti waxaa laga yaabaa waa maanta laga sheekeeyay Djibouti iyada markii hore way soo saar inaan laga weerarin Iran iyo Yemen inaan laga weerarin Yemen oo la weerarayo way diideen waan ogaa marka xuutiyiinta iyo Yemeniyiintuna way ogyihiin صح mid la dad fara badan oo Yemeniyiina ku nool وطبعا في وبابا تدقالق له ودقنا وجيبوتيان صح ويجا لفتو قيب كا ودن كان إنه دبعتي سوقان لكن وحي كسب سنة ودمد الدرس كا كلنا بقى نلاقي ويرن وقدر لو أنا لقاها لنا وعربي ما هو في عين مركز أوكي هاي وده إسماعيل ما هو كلام حق سياسة هي is a good player politics مركا إسرائيل عقبت وين وهي كلا كل مدون تحوتين sababta xuutiyiinta waxay Iran haystaan oo dhan waan haystaan xodkor waxay ruqad wax alla waxay Iran ay haysato laakiin xuutiyiinta gantaaladoodu inta badan ma gaaraan dhexda lagu qarxiyaa waa sababtu waa wixii qarxin jiray waa la baabiyay ma way gaaraan qaban jiray bahaladii diyaarka oo dhan waa bay wixii raadaradii iyo kuwii beeltariga loolan jiray wixii oo dhan iyo marka toos u galeen hadda gantaalaha hada isticmaalaya hypersonic way ma garan hadda kuwa isticmaalaya hadda gantaalaha u dambeeyay maalmahan isticmaalayaan
وهايبرسونيك wax badan oo gantaaladii faraha badnaa way wada khasaareen oo wax gantaaladii Iran macnaa ay daaliso iyo exhaust garaysay weey raadaaradii faraha badnaa ee qabanayay baaladan way gubeen marka waxa weeyaan meesha ay ku socoto inay marka raadaarkii caadiga ah ee hiidka samayn jiray normalka oo marka la arko buunisii dhamooye cid macnaa siibooyinkii hore iyo wixii kale ka hortagay ma jira difaacidii faraha badnaa ee saarsaarnaa ee maxaan ku dhahay iyadoo la kabla iyo markay soo duushaba sheegi jirtay ma jirtaada baash markay dul timaado way iska cil ماشي اوكي برنامجka qaybtii horeeto intaas ku soo gabagabeynaa haddana waxaan u gudbaynaa qaybta labaad. Breaking news. You are watching Tilman TV.